munaasabadani ballaaran ayaa ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay hotel Galis ee magaalada Burco. xafladani ayaa ujeedadeedu ahayd in lagu sabootiyo ugaas Axmed Maxamed Siciid iyo sidoo kale boqor Axmed Imaan Warsame oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland. xafladani ballaaran ee lagu sabootinayo ugaaska iyo sidoo kale boqorka ayaa waxa goobjoog ahaa odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, aqoon-yahano, dhalinyaro, haween iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaana hadallo kala duwan oo sabootina ka soo jeediyay waxgarad, cuqaal, siyaasiyiin, odayaal iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadani. dhaqaalaha iyo horumarka deegaanada iyo degmooyinka Soomaaliland meesha waxa jiray saddex nin oo ganacsadaaba waxay soo marin jireen shidaal, waxay soo marin jireen qaad, waxay bixin jireen cashuurtii ku waajibtay ee shuruucda waddanka ogolayd waa la dagaalamay. ifan dagaalkii wuxuu gaadhay in la qalajiyo jaadka oo ciidan meel ka sokaysa la dhiga baligubeelay oo la yiraahdo waan eegaynaa la xanibo. shidaalkii waxa la saaray cashuur aan cashuurada kale ee shidaalka inoo yimaada saarayn. arrimahaasi waxay haayeen cadaawad deegaanada iyo deegaano badan oo kale la galay. waxaan halkan uga faa'iideysanayaa fursadda oo aan guda joog iyo dibad joog baan baaq dheer ugu dirayaa in loo kaco oo hadduu qaad leeyahay iyo hadduu baayac mushtar kale yahay iyo hadduu shidaal keeni jiray marna tallaabiyo marna soo tallaabiyo. haddaan loo arrimiya loo ilaabu yidhi awood ahaan lagu mariyo aqlabiyadii Soomaaliland baynu nahay. marka hore aad baan waxaan idinku mahadnaqayaa xafladan ballaaran idinkoo Burco ka kooban dhammaantiin aa u diyaariseen ama ku sagootiyeysaan ugaas Axmed Maxamed iyo boqor Axmed Imaan oo labadaba markii hore si wada jira u soo dhaweyseen. aad baan idinkaga mahadnaqaynaa maantana xafladan aa ku sii sagootiyeysaan waliba ugu diyaariseen in aa ku maamuustaan haddii Ilaahay ka dhigo de waxay mudnaayeen. inta markaan dhaafo kulli qof laba eray buu leeyahay dadkana waxbaa laabtooda jiifo oo iska badanaya hadalku. cadaalad darrada laga hadlayay ay dawladdu ku eedaysantay lagu eedayn maayo way ku eedaysantay. waxaan ka xusayaa taa imika laga hadlayay oo kale oo aan tusaale u soo qaadanaya balgubadlaha iyo burcadan aynu joogno kale for example balgubadlaha waa maqlayseenoo dee xaq buu u lahaa kastan baa yaalay dawladeed oo cashuurta sida kala baydh u qaada oo dokumentiska kala baydh ku shaqeeya ayaa yaalay. waxay noqotay in jawaabta aniga ka soo baxday dawladda ay noqoto xaq uma laha inuu balgubadla cashuur dawladeed qaado. cashuurta balgubadla qaadaya maxay taraysaa hadhow waa tii horumarinta gobolka keeni lahayd ee dawladda dhexe ay lacagta ku soo celin lahayd u goyn lahayd wey. marka lacagtii dawladda dhexe soo celin lahayd xaq uma leeyahay in gobolka lagu horumariyo uma macnaheedu dhalaya. waa tamaantana Burco ka taagan. Burco waa ogtihiinoo waa seylada geeska Afrika ugu weyn, bariga Afrika seylada ugu weyn baa ka samaysan ee xoolo maraan. cashuurta xoolaha Burco ma qaadan karta baa leeyahay. waxaan idin leeyahay anoo hadalka soo koobaya maanta arrintaa waxaa u taagan golaha deegaanka ee aad doorateen ee Burco yaa u taagan oo dabagal ku haya oo xaqaa ka daba qaylinaya. haddaydaan taageerin waxaa ka doorateen anu garan maayo. waa inaad taageertaan oo ku taageertaan cashuurtiinna in la helo. waa in lacagtaa soo noqotaa. iyagoo isku duuban bay baarlamaankii maalin dhaweyd hor fadhiyeen oo ay ka hadlayeen xaqaa idinka maqan. waxaa ka ogaataan iyadoo dakhliga intaa leegi soo xaroodo oo meel kale la idinka qaaday waxa la yidhi dakhliga dalka waxay Burco ku leedahay 0.8 bay ku leedahay. 0.8 kaasuma marka dambana wixii uu gooyo la soo siiya oo 10 milyan wax la dhigo dhigma
gobollada qaarkoodna waxa la yidhi 50% bay leeyihiin dakhliga soo xarooda dalka ku soo xarooda marka awr loo afceliyo maqli jirnay gobol loo afcelinaya ka soo baxay halka gobol loo afcelinaya ka soo baxayo midna la leeyahay xaq buu leeyahay inuu development iyo horumar gaaro maadaama uu dakhli badan soo xareeyo inta dakhligii dalku soo xareey la odhan keligii loo xidhay oo la yiri balugwadana xaq uma leh burcana xaq uma leh بربرنا حق ماله محمد جدا عرقابنا حق ماله إن كل لو قلنا فقيو كونا لو أفعليه الله يراهو ما جيران إن دخلك الدولة يا دون كين أنفعت اللي قيبسر لها هاي هو مرده هو قال له وحن كوجسو كجبحيا قولها ديجان كم ما أنت أريد أكو تاجر برعي هلا تاجر برعي رجع دورتين برلمان كو دورتين برعي هلا عسلو برع مظاهرات أكو قاطم هاي يري ظلمي برع لوجو هاي ليروش كقاطم ولا برلمان برع الظلمول برع الله ظلم يو هي قعنت العقل وصارة ليروش كقاطم برع وين يكون كعبو وين يكن نقطة كرسونية يسيسي برلمان كا كل جودنا لوجو قسمين يسود عسلا معكوا باللي قبل إري وحويان واسجوتين waxaan ku sagootinayaa ugaaska iyo boqorka waxaan leeyahay ilaahay idin nabad geliyo ilaahay xaq ah idin garansiiyo ilaahay hawsha wadana idin ku guuleeyo waxa weeyaan dalkeenni maanta dulmi baa ka socda dulmi ayaa ka socda qarankan waynu soo halganay haddii ciidda la tuujiyo dhiig baa ka imanaya waxa weeyaan marka aad Soomaaliland qoys ahaan loo eego qoys kasta tusaale ahaan aniga aabahay halgankii uu ku dhintay walaalkayga curadna uu ku dhintay kii saddexaadna uu ku indhabeelay waxaan u malaynayaa qaranka Soomaaliland cid iiga laxay jecel badan ma jirto amnigeeda horumarkeeda iyo cadaaladdeeda waa ogeydeen waxaan ka mid ahay dadkii dulmigu uu ku dhacay afar bilood baan shooki ku xidhnaa aftuub bay ahayd aamus bay ahayd wax kale may ahayn cadaaladda ha sheegin bay waxa weeyaan maanta intii aan ku jiray jeelka waxyaabaha laga jirircoodo ee aan ku arkay waxa ka mid ahaa nin ahaa SNMT raggii eedheerkii soo galay burco oo 15 rasaasi ay ku dhacday oo naafa ah oo dhakhtar China rabay inuu qabto lagu xidhay baasaboor Soomaaliya ah ayaa markii uu tagay ee baasaboorkii soo qaatay ee uu dalka China ilaahay nasiibkiisa ka siiyay dhakhtar yiri waan bilaadanimo ayaan ku qalaynaa ayuu isii la soo dardaaran qoyskiisii Hargeysa lagu xidhay jeelka markii noogu keenay ninka waxaanu geyn jirnay suuliga waxaanu ku geyn jirnaa anagoo sidna ninkii waxa lagu xukumay 8 sano xariga fiisihii iyo wixii bana waa laga riday ninka inta garanaysa way garanaysa wixii asana way garanay ninka hirka la yiraahdo way hirka weey marka waxa weeyaan dalkii sidaas ay nagu soo halganay maanta intii ka hadhay halganka ka soo badbaaday ee u naafowday in haddana xukun inta leel qof curyaamay lagu rido taasa cadaalad darro inoogu filan inay cad tahay waxa kale oo aan soo qaadayaa labada nin ee lagu xukumay 625 kun waan wada xidhnay nin wuxuu igu yiri ilaa 97 kii burco Hargeysa kantaroolada dhinacan uga maan bixin macallin baan ahaa inta waxbaan dhigay private baan ka dhigay ardaydaydii oo dhan baa ii marxaatay inaan maalina xiisad jarin haddana waxa la yiri xarka ku yaala ood weyne ayuu soo jarjaray cadaalad darrada dawladda waxay noo cadeynaya maxkamadii koowaad ee darajada koowaad nimanka way ku weydi tii labaadna waxay ku xukuntay 8 sano oo xariga iyo lacagta cadadkeedu inta 625 kun oo dollar macallin waxa weeyaan labada maxkamadood maxkamadu 30% ayay kiiska bedeli kartaa ta hore marka ay ku xukuntay inaan wax dambi aan lahayn tadambena imika inta la sheegay dawladdu waxay isku cadeysay inay cadaalad darro ay maxkamadeeda ay ka jiraan
waxaynu ogeyn dawladdii siyaad barre may dhicin marnaba qof crime lagu soo ogeeyey oo dabadeedna inta waxba lagu waayay dabadeedna haddana ambiil laga qaatay halkaa ka baxbay odhan jiray ninkii geelle aynu garanayna qofka marka uu waxba ku waayo wax ambiiloo laga daba qaadan jiray miyaa garanaysa halkaa ka baxbay odhan jiray iminka teeni way ka duwan taho maxkamadda koowaad baa waxba kugu waayaysa dawladdii baa koonaysa haddana ambiil aanu kaa qaadanay dee maxkamaddu inay casishaabay waxaa jira nimcooyin waaweyn oo bini'aadamku marka ay haystaan aanay dareemin qiimaha ay leedahay laakiin markay waayaan way dareemaan waxaa ka mid ah nimcatul sixa nimcadan caafimaadka nabadgelyada xorriyadda inta bini'aadamku intay haystaan ma dareemaan qiimaha ay leedahay laakiin markay waayaan ayaa qof kasta garta qiimaha ay ku fadhido marka alxamdulilah waynu marka hore leenahay marka xigta waxaan salaamayaa ugaaska iyo boqorka labadaba salaan qalbiya baan salaamaya salaan xurmale baan salaamaya sagootinta iyo soo dhaweynta labadaba way mudnaayeen waana madax dhaqameedkeennii waa mustambeedkeennii qiimo gaara inagu leeyahay aad iyo aad baan iyagana u salaamaya intaa markaan ka tago waxaan u gudbayaa halkan waxaa ragga iga horreeyay cadaalad darra laga hadla musuq maasuq baa laga hadla laakiin hal shay baa muhiim in la ogaado cadaalad darradu ilaa iyo bilowgii nolosha bini'aadamka waa jirtay ilaa iyo bilowgii nolosha bini'aadamka uu soo jiray way jirtay maalinba heeray joogtaba laakiin marba dadkii waagaa joogay ee xilligaa joogay ee ay qabsanaysay ayuuba xalkeeda raadinaya ayuuba xalkeeda iyo dawadeeda raadinaya innaguna taynu ka cabanayno xalkeeda iyo dawadeeda waa laynaga rabaa si laynaga rabana waa maxay waa midnimo waa midnimo waa midnimo bal u fiirsada ummad hal deegaan ku wada nool oo hal baahi wada qabta oo hal duruuf wada qabta ayaa kala qaybsan maxay ku waayaysaa in la cadaalad dareeyo maxay ku waayaysaa in la gacan bidixeeyo maxay ku waayaysaa inay weliga dayac iyo baylaha ku noolaato waxba ku waayi mayso way xoogeedii baa kala qaybsan haddaynu rabno inaynu cadaalad darrada jirto bedello way jirtaaye haddaynu rabno musuqa baahsan inaynu wax ka qabanno waa ka qaban karaa laakiin saan wuxuu qaban karaa waa inagoon ahayn maxay waa inagoon mataanaha ahayn waa inagoon jeegaan ahayn waa inagoon xabuush ahayn waa inagoon maxay ahayn ma inagoon maxay waa inagoo hal ummada waxa la yiri waraaba adhi u dhacay dabadeetna intuu neef ka mid adhigii cunay waraabii ayuu haragiisii gashaday dabadeetna adhigii waa didaa uun war adhigan maxaa didinayaa ninkii lahaabaa adhiga soo baxa adhigu ku dhex wareegaa waraabiba ma joogo markii dambe intuu karinka istaagay buui adhiyow haddii waraabi bahal kugu jirana waa lagaa saari haddii balaaya ku wadana waad ka bixi anigu waxaan leeyahay waar cadaalad darrada aynu ka dagaalanno waxaan ku soo gebagabaynayaa maanse la yidhaahdo isubuga maansadaa isubuga la yidhahdaa waxay ka warramaysaa waraabahaasoo intuu dadkii u yimi ku yidhi war aamin baan ahay nimayo halay aamino aniyo dadka been baa naloo kala sheegay bal maanta waxa la ii diro halay tijaabiyo dabadeetna dadkii baa tijaabinaya waxa la odhanaya warbalaa waa runtiisii aynu tijaabinno adhi baa loo diraya markuu maalmo soo hooyo adhigii ayuu maanta dambe dee kaw iyo kax ka dhigaya ila waa waraabe maansadaasi waxay odhanaysaa beri baa dhul waa yidhi waxaan ahay nin boqoroo laga been abuuray ee beerdaajiyaan ahay dadka baylahdiisiyo baadidaanu urushaa weligay ma bi'in shay mana cunin wax booliya inaan ceeb ka beri ahay been haddaa iga moodeen ibilkayda maanta oo aan isbarana buu yidhi dadkii bahalkii aamine bulbushiina laga xiir ka bedelo dhurwaagii kobtii loogu magac bixi barkhad loogu yeedhiyeen baashiraadda lagu badi salaan diiran lagu goob dadku inay boqraan iyo farxad ugu bishaaree isaguna bilkhayr yidhi cisho iyo bil dabadeed boqol adhiya loo diray below waa dambaysaa beriya nabad ku soo hoo ballantiina kama bixin inaan ceedhin bahaldayn ninna baajin caadii rag horaa bayaansho mahmaha ku bixiye markay maalmo beeshii baqdintii ilowdeen nabad lagu bariistu subax wuxuu ku soo baxay adhi meel barqanayo bidhaan buu ka halacsaday meel ku beegan reeri ilay waa niba'ayo busaaradii dishooto bakhtiga u xalaale badhidii iyo lagii iyo baruur baa u hilaacdo bal cidila joogto yuu baallaha ka dayday hadba meel bannaan iyo jirri beerka soo saar wuxuu kiciyo budulkoo boorka isku qariyaba baadida cidlada tuban markuu baylaha ku hubsaday qosol beerku la casaa
بلغوا كسوي أفكي سي بلعنا وبلغي تبتي سي معين السوبحي أرجي بروا عني باقي جينا كليري مركو باصها أرجي dadkii waa ka boodeen bisinka yiraahdeen suuradii badnaa iyo baqrada badal loo qabay yaasiinka lagu boob beloy bayna lagu yiri daro oo barbaarkii barxad loogu yeeray baasabuur loo oran jiray markuu helay bayaankii dadku inaanay kala baran beentii runtiisii mar labaad badka iskeen afka boorka soo mari iska bii kariinkii wala iyo biluu maray oda reeru baaqiyo birmageyday yahay warka BBC iyo baraha internetka lagu badi wargeysada dadka loogu sheegay inkastaanu baaqo burcooy hargeysiyo reer boorama u dugo inuu bahalku yahay kii cunay adhiga berigii bulshadii la marin waa dadku may baraarugin wali shacabku may baran beenaalayaashii baktigooda qalan jiray wali waa ballamaya waxba yaanan barashada siduu ii bariisaday hal abuur ku bixin oo maansada ku baahinay bulsho yahay qoraalka iyo taariikhdu waa buug nin waliba bog furan iyo page buu ku leeyahay bilaayooyinkii dhacay iyo baasihii jiray wixii baxar la soo maray nin badbaadshay qaranka iyo barmadow ninkii leeyahay isma baadi raacaan inkastoo la baashiro biladii xil lagu talo loo tumo balwiye hees ama boor qurxoon iyo baal dahaba lagu qoro burda weyska kiisii geeyada baroorka ah 100 jeer hadduu kuga baqal gaari waa faras didi wawdu taabay malooliga ku boodiyo sumar xumidaabi inkastoo buruudkiyo bidaantiisa leeyahay ama uu biciidsado raray baarqab laga dhigay firkiisii bedeli waa inkastay bedelato dharka kiisa bilicda leh iyo bul xariira loo xidho ama boqorad laga dhigo doqontii baslowdiyo baali waa iska teedii isuboga barbaa maqan dayax baraha joogiyo bil saddexan ninkii guday kala badiyo socodkee isagaan dabaal baran ninka baxarka gelayo inta aan badweynta iyo baxarshoonku kula tegin boolaha ka soo noqo ninka dhigay bucshuradee iyo kihiya baashaha afarlaha ku baadhee intuu biiga urursaday lixla yidhi ku badiyow maad baranin tuubkee boolada ku soo noqo mar labaadna baandhee kala saar ran iyo biig kala garo run iyo been inta PhD iyo bahda qalinka oo tuban dalka badowgu haystee ninka ragi bahdilan yahay nacaskuna ka yahay boos iyo professor tagi inta beenawaaski iyo koofiyad baclaa iyo bilasheegu oday yahay boqran yahay ninkii xumay bukaankii xanuunkii baahiduna tahay ceeb baryaduna ku faan tahay inta boobka qarankiyo booliga la cunaye inta boobka qarankiyo booliga la cunayo inta boobka qarankiyo bulsho yahay dayaysani wala kama baxdaan ciil anna baasha muuso baroor diiqda shacabkiyo maansada baleyda budulkeeda kama haro intaasaan maansada ku gabagabaynayaa waxaan hadalka kaga baxayaa cadaalad darradu uma baahna inaynu aqal hoostiinta fadhiisano aynu shacab ka tunee horta marka hore cadaalad darradu waxay u baahan tahay midnimo iyo inay ummaddu midowdo oo ummadda aan loo kala abtirin meel la isugu keeno oo dabadeetna la yiraahdo cadaalad darradu yay dan u tahay cadaalad darradu inay dan u tahay biyuu jiraa maya koox yar oo gafana noqotay oo doonaysa inay dhiigga dadka ku bararto oo ay aqal dhaadheer ka dhisato war anigu ninka tuuga waxba isumaneen waxaan leeyahay ugaas boqoshada soo boqotay gobolkaaga iyo dadkaaga u timi aad iyo aad bad ku matay waana lagu soo dhaweeyay maantana waxaan ku sii duco iyo sugoodis ilaahay ku nabadgeliyo hawsha aad ku jirtana Allah ku fuudeeyo xilka ummadda u qaaday Allah ku fuudeeyo si cadaalad iyo xaqna Allah ku garansiiyo annaguna qalbiga iyo niyadda iyo calooshaba waa ka jecelahay haw shirar hore aan kula kulmayno anigu khasiin way kulay waa jireen taa intaasaan ku dhaafayaa tan kale waxa halka laga hadlay cadaalad darro haddii cadaalad darro la aqoonsaday dee waxa ku jirta talo in laga yeesho haddii talo la waayana cadaalad la heli maayo waxaan leeyahay war weyn aragnaa cadaalad darrada tabali gubadla maanta laga sheegayo imika halkan ku talay stikerka iga dambaysa ee halka laga hadlay arinteeda laga hadlayay oo rag badan iga xoogaalsani taabteen iyo tii uu ka hadlay Xasan Xuseen ee baarlamaanka oo aan la markan arkayo shirkooda aan la yaabo waxaan u tagnay wasiir baana soo hor fadhiistay waanu heshiinay wargii maatan baarlamaan yiraahdo wasiirkii baa loo yimid si laba dawladood waanu heshiinay leena ugaas marka hore sida fiican aad noogu timi oo aad maaragtay shaharada hadallada wacan ee wax ku ool kale noo fartay ilaahay ku nabadgeliyo marka hore leenahay marka labaadna waxaanu leenahay 100,000 nin oo kaliya oo arabiya garxadisa ugaaska kala sidiisa dhiirana firfircoon mataanahan horta dadku way ka boodaan mataana waxa mataana muxuu ahaa
waayo markii hore inagu isdhiganay lagama boodin haddaynu markii noqono mataana caad uu noqono lama boodin imika qof la mataano muxuu habo odhanayaa laakiin imakaynu tusaynaa wuxuu mataanu yahay haddaynu tusayno tusaalaan aynu indhaha u kala furaynaa haddaynu indhaha u kala furayno mataana wuxuu yahay waxaan sheegayaa meeshan balligubadle waxa weeye balligubadle inaguunbaa u hayna mashruuca balligubadle innaga u hayna waanaynu dhisaynaa waanaynu ku bilaabaynaa waana wadaynaa waxa weeye inteena hadday tahay maxay tahay baayac mushtar waa innaga waxa dhaqdhaqaaqa baayac mushtarka xilka lama dhaqdhaqaaqdo baayac mushtarkeenaynu bartaa ka bilaabaynaa qodob waa cadaaladda wararta markaynu xaqiiqo sheegayno cadaaladda waxaad moodaa hadba ka xukunka hayo inaynu ku dhaliilee cadaalad daradu waa mid cidiyaa raacday oo Soomaaliland iyo Afrika ba ka jirta qof walba ku dhaqan guriyeenna inagu aan cadaalad kaga dhaqanno xukuumadda marba inoo joogtana de way inaga sii belaysan taayuune oo hantidii inaga dhaxaysay bay gacanta ku hayaan oo ay boobayaan iyadana la baraarujiyo laakiin cadaaladdu waa mid Soomaaliland wada baahantay cadaalad daraduna waa mid wada jirta taa intaasaan kaga baxayaa ta kale ugaasku waa ugaaskii Soomaaliland marka hoos loo soo degeen waa ugaaskii mataanaha waxaa leeyahay kelmadda mataanaha yaan cuqdad laga qaadin wanaagu wuxuu ka bilaabmaa in yar badnaantana uu ku dhamaadaa xumaantuna badnaan bay ku bilaabmataa jamac badan baa bilaaba ugaaska guud ee maxaan ku dhahay Soomaaliland markuu ka soo degana mataanaha ugaas Axmed Maxamed Saciid iyo boqor Axmed Iimaan iyo marti sharafta kale ee shirka ka soo qayb gashay intaba iyo haweenka iyo saxaafadda dhamaantii waxaad ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore halkan waxa laga hadlay cadaalad darro waxaan filayaa cadaalad darrada Soomaaliland maanta ka jirta ee aan ku arkay ama ka muuqata heerkay gaarsiisan tahay waa ogtihiin waxa qaybsan beelaheedii baa qaybsan gobolladeedii baa qaybsan degmooyinkeedii baa qaybsan gobolladii baa sidii ay raggii hore sheegeen la isu afcilinaya degmooyinkii baa la isu afcilinaya kuwii cashuurta lagu qaadiyay baa la isu afcilinaya lacagta qasnada dawladda ku wada dhacaysa haddana la leeyahay meel waa lagu qaadaya meel lagu qaadi maayo ma dawladda ka jirta dawladda ahayn ma laba dawladood baa ka jira ma farsamadeedu siday noqonaysaa waa arrin isweydiinteeda mudan waxaan leeyahay kala qaybsanaantii waxay gaadhay heer ay ilaa iyo degmooyinkii gudahoodii haddana la sii kala qaybiyo halkan waxa laga sheegay in Hargeysa badhooman yahay badhna waxaan ku ri biyuhu ay qulqulayaan halkan in cashuurtii waxaan ku ri siyaabo qaldan loo qaadayo imika muddo aan burcaydu kula sugnaa waxaan habeen maalmo dhawto ka malqaayay ama qaybta cashuura bariga wixii gaaraya dhismaha gaaraya $100,000 dhismaha gaaraya cashuurtiisa wuxuu baa lagu qaban karaa caasimadda waxa weeyaan waa dulmi halkii u dambeysay waxaan filayaa waa wax hore u aqbasheen oo ay yeesheen waxaan leeyahay anoo ku hadlaaya afka soonaha shanaad kilalka shanaad dowlad deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay kala qaybsanaantii idinka gudihiina ka jirtay haddii aad tihiin reer Soomaaliland waxay soo gaadhay in soonihii shanaad soo gaarsiisaan waxaan idin leenahay shacabkiina reer Soomaaliland haddii xukuumaddiini noqotay waqtigii hore xukuumad lagu dhaato oo ku suntan astaanta nabadda ayay ahayd maanta laakiin waa mid ku suntan fidmada iyo kala qaybinta waxaan idinku codsanaynaa inaad shacabkiinu ka dhiidhidaan inaanay dadka dariska ah soo gaadhin fidmada gudihiina ka jirta ilaahayna waxaan idinka baryaynaa in ilaahay idinkale idinka qaboojiyo dhibtaasi ay halkaa idinkaga dantabaan ilaahay idinka baryaynaa ugaas Axmed Maxamed Saciid Cali Mahdi iyo sidoo kale boqor Axmed Iimaan Warsame ayaa munaasabadan soo afmeeray kuwaasoo hadallo kala duwan ka soo jeediyay burco waa midaysan tahay qofkii cadawee ka naxa ha ka naxo laakiin burco bari iyo galbeed ma kale he burco waa burco waxaan la kulmay madax dhaqameedada burco waxaan la kulmay ganacsatada burco waxaan la kulmay siyaasiyiinta burco wax fara badanna way isku ognahay hablahana waa kulannay ninkii kala qaybinayo ka bax
waxaan dareensanahay in dhowrka cishe aan joogay lacag fara badan lagu cunay bal hadda soo dhagadhage iyo halkay wax marayaan soo baadhay ugaaska iyo reer Burco waxa ka fiicnayd in lacagta lagu isticmaalo Burco oo wax loogu qabto waxaan yar dib ugu soo noqonaya waxa weeye العدالة إن بدن بين عدالة دي سويديني طلعوا عدالة سيدين إنكوا أرجنو مية عدة كلو أرجتا طلعوا ما له واحد يحضرتين إن عدالة شرحناه أي نوشجنا عدالة دو واحد تاي ما لقى يابين إن واحد كلا عدالة دو أركان يجو waxay isweydiin inay niman la xirxiray oo lacag dollar oo aad moodo tii sharaaiga iyo dawladaha la ganaaxay jireen la ganaaxay oo waliba ceebteeda kala tahay wadan Soomaaliland la yiraahdeen nahay in waliba dollar lagu xukumo ceebteeda leedahay waxaynu hadeer laga hadlayay maxkamaddii koobaad way fasaxday dabeed haddana dib baa loo xukumay oo lacagta badan iyo sanadada lagu xukumay waxaynu maqli jirnay maxkamadda la yiraahdo maxkamaddii distay inama maqasheen waa maxkamad la oran jiray amba ha qabin amba waan ku qabadsiin macnaheedu waa amba waan ku qabadsiin weyde marka maxkamaddii ay fasaxday haddana la yiri ka noqo hayeeshee ragwaakii ku fay haddana kaca miyaan tolo bari loo noqon doonin in doorasho timaado miyaan dib dambayse campaign loo gelayn miyaan mar dambe la iswareysanayn miyaan ilaahay ka dambayn dadka waxa sameeynaya subhanahu wa ta'ala waxaynu ka hadlaynaa afweyne markii aynu dagaalamayna wuxuu yiri dhul mooye dad la igu iman maayo tolow dawladaheenuna ma waxay yiraahdeen dhulna naloogu iman maayo miya marka dadkii afweyne ayri la igu iman maayo dhulka la igu iman maayo soo marka inaynu dawladaheena yiraahdeen maaha wal ciyaad billah waxaan soo koobayaa kulli waqti badan ma haysano waxaan ballan ilaahay iyo idinkaba idinku qaadayaa halkay cadaaladu ku jirto inaan ka dabagalo inaanan u gaban cidna inaanan cidna ka baqanin inaanan hunguri iqaadin in halkay taagan tahay aan intaan qaban karana qabto cid wixii aan qaban kari waayna dadka u sheegto xarig ninka baqameehi hunguri ninka baqameehi hunguri nin uu qaadameehi hanjabaad inay baqadsiiso meehi العدالة عدالة نكون شقينا إن شاء الله بالله الكريم نيري عدالة دران كدق عالمية ظلمي بان كدق عالمية عدالة دران ومدكو حكومية ظلمي بان ومدكو حكومية والدولة السومية لا نيمك جرتا وحكلون دي شيء idinkaan maanta idila hadlayaa Soomaaliland baan la hadlayaa reer Burco la hadlayaa anigu marka iska kii waramo dagaalkii wadanka lagu xoreynayay ee SNM aha anigu kuma jiraan shishuunaag baan ahaa ciilna maanta kuma qabo mana cadhoodo ismana deldelo لأنه وان اسكو كالسوناي حداد جهادكي كقيب قلي لهايد oo talimaanta ay kugu dhici lahayd waa mid soo daldali lahaa waxa kaloo la yaabanahay ma dulmi baad ka dagaalamiseen mise dulmi baad u dagaalamiseen taasina waa iga su'aal idin weydiinayo anu ma qabo dulmiga maanta ka jira dawladdan iyo tii hore siyaad bareed kuma hayn siyaad bareedaha muu iibin jirin ciida muu iibin jirin buuraha muu iibin jirin waxa qurad ka dagaalanteen xun iyo xun ku dhalay
kelmadaasu baa la idin oran jiray oo isku wada raacdeen xun iyo xun ku dhalay lama iibin jirin buuraha badaha lama iibin jirin dadka lama iibin jirin intii dawladdu ay lahayd guri ama xafiisyo ay ma iskuul ku jiray marka soo qaadano caasimadda iyo caasimad ku xigeenka waa Hargeysa Berbera maanta yaa haysta ayaa la wareegay ma dawlad baa gacanta ku haysta mise dad gaar ah haysta oo way dulmiga maanta jira mid ka weyn bulshada maxaad uga dagaalami weydeen hadda dulmi ka dagaalamiseen oo laayeen siyaad baraana gumaysanayay dulmiga maanta dawladdan Muuse Biixi iyo tii ka horeysay Axmed Siiraayo dulmi ka weyn oo Soomaaliland soo maramay jirin maxaad uga dagaalami weydeen waay dulmigan maxaad uga dagaalami weydeen dulmi baad u dagaalamiseen maxamed siyaad baraad xukunka ka ridaniseen waxaana dooniseen inaad idinku isku meesataan laakiin alxamdulillah anu maanta koladaan isku cilkaambiyeen oo lahayn sidii imanka ninkan lahaa walaalkay baa ku dhintay aabaay baa ku dhintay walaalkay baa ku indhabeelay haddayna anigu midna aanay jirin oo alxamdulillah damaad isku cilkaambiyo waxa la inooga baahan yahay haddaynu nahay Somaliland inakoo iskala qaadqaadin inakoo burco looran waa bariya galbeed war dulmigan maanta jiraynu ka dagaalano war inaynu maaha marka leen dagaalano Muuse Biixi hadduu cadaalad ku soo dhici waayo haddii uu leeyahay dulmi baan ka dagaalamay waxbaan dulmiya dee dulmi ka yeeli mayno dee giddigan inakoo midaysan Somaliland bariya galbeed aan dulmiga iska dulqaadno takale bal commission baa jira commission ku haduuna wax isku ogeyn waa 7 qof maanta saddexdii xisbi qaran sanadan imaka doorashadii dib baa loogu dhigay wixii ay sameeyeen ba sameeyay hadday cadaalad wax ku xukumeen ku xukume hadday cadaalad darro iyo dad ugu shubeen ugu shube haddii kul xisbiyada ay yiraahdeen war noo garqaadi meesaan ma qasaba ma iskaga tagaan meesha iscasilaan haddayna dulmi jirin haddayna wax isku ogeen imika haddaan anigu cilis qabano oo gar meeshii la dhigo raadaan ninka kuma kalsooni oo ii garqaadi maayo ma qasaba igu garqaadaya ma qasaba maxaa haddaba la iskugu moogtahay joojan gareynaya 7 qof ma Soomaaliland baa u dumisaa تميس عسلان وطن وحير وحمد نوكر قادم إنسان تمام إيش إسكت كان وإسلام يابان ويشرفتوا ذا إيجان ويرادان بركول يرين لو بكر قادم إيده وانس عسلان ميس عسلان محام إيش كوتشرو لقرينا يا وحام إيش كوتشرا لقرينا يا محيتاي يا مدمير لان با ما waxa weeye dawladda maanta joogtiyo kumishiga wax isku ogaa wali anu ma fahmin waxa meesha ku jira laakiin sharaftoodu waxay ahayd markii la yiri noo garqaadi meesaan inayna Soomaaliland burburine inay yiraahdaan haddaydan lagu kalsooneen waan iscasilnay gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin kala duwan lagu maamusay ugaaska iyo sidoo kale boqorka iyo sidoo kale Saciid Axmed Qulumbe